waajibaadkayga shaqo ciidannimo ama shaqadeeda maalinlahi waxa weeyaan ilaalinta nabadgelyada xeebaha jamhuuriyadda Somaliland dhinaca badda iyo dhinaca barigaba shaqooyinkaygu waxay isugu jiraan ka hortag korjoogeyn roondayn iyo waxa weeyaan deterrence waxa la yiraahdo cadowga jamhuuriyadda Somaliland inaan marnaba hawaysan inuu soo galo xuduudaha dalkeena ama uu ka fuliyo wax dhibaato ku ah dalkan iyo ammaankiisa ciidanka meesha jooga waa saldhiggaasi wuxuu ka kooban yahay intaasoo barood oo ka bilow wixii ka xiga meesha la yiraahdo Cabdi Geedi ilaa iyo xuduudka dalka Jabuuti baraha ku teedsan oo tiraba ilaa iyo 6 barooda oo ciidanku ka howlgalo mar waliba ku qalabaysan tahay qalabkii military ee ciidan ay u baahnay si waajibaadkooda u gutaan waana waxa ammaanka eegada aynu joogno ka howlgala aaga kor u qaadaya dadaalka ragga halkaa jooga iyo daacadnimadooda horta qof kastoo dhalinyarada fariinta aan u diriyo waxa weeyaan inuu waajib ka saaran yahay inuu dalkiisa u shaqeeyo ilaahay baa dhulka nagu uumay meel kale ma lihin waxa weeyaan wixii aad geliso waddankaaga wixii aad geliso uun baad ka helaysaa ciidankana waxaa ku dhiirigelinayaa dhalinyartiisa inay kartidooda dadaalkooda labalaabaan waajibaadkooda siday tahay u gutaan si loo gaadho higsiga himilada uu leeyahay ciidankan iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya Saylac waa xarunta taliska saldhigga labaad waa magaalo aad u fac weyn runtii magaaladaasi taariikh fara badan oo qarankan iska leeyahay baa ku duugan waa turaasi aasaar badan ay ku duugan tahay deegaan qurux badan ku taalla bad iyo barida waxaana aad waxyaabaha ay aad ugu caanka ugu tahay waxaa ka mid ah meesha la yiraahdo Saadadiin 7